Aad ayaan ugu faraxsanahay halkan inaan joogo aniga oo aan ahayn Muslim. Cahdigii hore ee Baybalka wuxuu inoo sheegayaa in Alle abuuray maalinka iyo habeenka maalintii ugu horeysay. Markaa kadibna uu abuuray cadceedda iyo dayaxa. Sidee bay suuragal u tahay inay jiraan maalin iyo habeen cadceed la'aan? Qaab sidaa u eg ayaa Quraanka lagu sheegay in qorraxdu dhulka ku wareegayso. Suuradda 21 aayadda 22 oo Quraanka ka mid ah, Allah koonka ayuu maamulayaa. Shakigaygu wuxuu yahay, Rabbi ma gafin miyaa markuu koonka abuurayay? Waxaan u malaynaa in faqrooyinka Baybalka iyo aayadaha Quraanku sayniska ka soo horjeedaan. intaas ay sharaxdo walaal magacaaga ma noogu celin kartaa sidoo kale ku soo celi arinta aad ka sheegtay quraanka aniga xogaa si fiican uma maqlin magacaaga ugu horeen iyo wixii aad quraanka sheegtay quraanku wuxuu leeyahay tiri qorraxdu waa suuradda 6 ayaan u malaynaa suuradda 6 miyaa lagu sheegay in cadceedu wareeganayso waxa dhahda suuradda 21 aayadda 22 waa suuradda 21 aayadda 22 cadceedda wareeganayso miyaa maya suuradda 6 sida aan aaminsanahay balse suuradda 21 aayadda 22 waxa lagu sheegay maamulidda Allah ee koonka sayniska ay ka soo horjeeda marka lagu eego adiga walaalka su'aal buu na weydiiyay wuxuu sheegay inuu aqriyay Baybalka wuxuu soo qaatay dhowr faqro kamid ah Baybalka iyo aayado Quraanka kamid ah nambarkoodana uusan sixin wuxuu sheegay Baybalku inuu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu abuuray maalinka iyo habeenka maalintii ugu horeysay taa wuxuu ka soo qaatay Book of Genesis chapter-ka 1 faqrada 3 wuxuu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala maalinka iyo habeenka ayuu abuuray maalintii ugu horeysay hadaad akhriso sidoo kale Book of Genesis chapter-ka 1 faqrada 13 ilaa 19 waxay sheegaysaa in Allah subhanahu wa ta'ala abuuray cadceedda maalintii afraad meelaha aad ka heli kartaa ayaan ku sheegayaa arintaasi soo sayniska kama soo horjeedo waan kugu waafaqsana sayniska ka soo horjeeda waxa jirtay dood aan la galay Dr. William Campbell Mareykanka Dr. William Campbell waa Christian Fafiye waa dhakhtar Mareykana PhD ayuu ku qaatay kitaabkiisa uga soo horjeeday Quraanka doodaasi Quraanka iyo Baybalka marka loo bandhigo sayniska su'aashaasi ayaan weydiiyay uuna ka jawaabi kari waayay marka waan kugu waafaqsanahay in arintaas ay tahay mushkil ka jirta Baybalka su'aashadan u maanayna oo ah in Quraanku leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala koonka ayuu maamulayaa marka loo eego Baybalka waan kugu waafaqsanahay inuu ka soo horjeedo xaqiiqooyinka la sugay balse marka loo fiirsho su'aashaada ah Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu maamulayaa koonka soo ma aadan dhihin cadceedda wareeganaysa cadceeddu dhulka ayay ku wareegaysaa arintaas waa waxaan maqlay sidaa darteed waxaan ka dalbay inaad ku celiso waxaad u celin weysay waan maqlay masdarkan ayuu sheegay suuradda 21 aayadda 22 waa marjic qalad ah ku sheegaya walaal waan ku sheegaya marjica saxda waa suuratul anbiya suuradda 21 aayadda 33 ee ma aha 22 waa kana quraanka taas waxaan kaaga sheegayaa xifdigayga anigu computer maahi jawaabta ayaan ku siinayaa walaal marka kadib hadii aad qabto codsi dib ma walaalkay walaal adiga waad i weydiiday iida marka aan ku jawaabay marka jawaabteeda ka dhamaado 20 kale su'aalaad weydiin kartaa balse su'aalaad i weydiiday si wanaagsan ayaan ku dhageysanayay hadda aniga jawaabteeda dhageyso marka aan dhameeyana su'aal kale weydii waqti kugu filan ayaan ku sii doonaa madaxa fadhigan inuu arinta diidaa laga yaabaa laakiin anaa ka codsan doono waqti maxaa yeelay adigu waxaad ku faraxsan tahay imaashahaaga halkan anaguna aad ayaan ugu faraxsanahay joogitaankaaga halkan walaalku wuxuu yiri quraanku wuxuu kuleeyahay suuratul anbiya suuradda 21 aayadda 22 mana aha 22 ee waa 33 in cadceedu wareeganayso aayadu soo qatana waa aayadda 33 ee kamid ah suuratul anbiya suuradda 21 midaas oo leh wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan-nahaara Allah waa kan abuuray habeenka iyo maalinta wash-shamsa wal-qamara cadceedda iyo dayaxa kullun fi falakin yasbahuun mid kastana falag ayuu dhex dabaalanaya qaladkaasi oo kale waxa uu ka dhacay Tasliima Nasriin ma maqasho Tasliima Nasriin waa Bangladesh waxay tiri hadii kitaab rumaysan yahay in qorraxdu ku wareeganayso gaararka dhulka sidee suurtagal noogu tahay inaan hormarno waa waajib in quraanka la bedelo nacuudu billah mushkiladdu waxay tahay ayada ay waajib tahay in ay quraanku akhriso si sax quraanku wuxuu leeyahay walladhi khalaqa al-layla wan-nahaara Allah waa kan abuuray maalinka iyo habeenka wash-shamsa wal-qamara cadceedda iyo dayaxa kullun fi falakin yasbahuun mid kastana falag ayuu dhex dabaalanaya laguma sheegin quraanka waligii in qorraxdu ku wareeganayso gaararka dhulka ma jirto quraanku wuxuu sheegay arinta quraanku sheegay waxa weeye in qorraxda iyo dayaxu booskooda ay ku wareeganayaan waa makaankooda aslan ba ereyga dhulku ma soo arorin aayadda waa huwa alladhi khalaqa al-layla wan-nahaara Allah waa kan abuuray maalinka iyo habeenka wash-shamsa wal-qamar cadceedda iyo dayaxa kullun fi falakin yasbahuun mid kastana falag buu dhex dabaalanaya markaan dhiganayay iskuulka waxayna baran qorraxdu inay sugan tahay oo aysan booskeedii makaankeeda ku wareegaysanayn
koonka ayay ku wareeganaysaa nidaamka qoraxdu dhammaantii wuu wareeganaya balse markaan ka qalin jabiyey iskuulka 1982 waxaan soo bartay qoraxdu inay sugan tahay booskeeda ku wareegaysanayeen laakiin aayadan quraanka kamid ah waxay leedahay ereyga yasbax waxa laga keenay ereyga sabaxa waxayna tilmaamaysaa dhaqaaqa uu sameeyo jirka qof nool hadii loo adeegsado ereyga sabaxa qof dhulka dul jooga macnaheedu maahan inuu wareegayo balse macnaheedu waxa weeye inuu soconayo ama uu ordayo hadii ereygan loo adeegsado qof biyaha ku dhex jira macnaheedu maahan inuu sabaynayo balse macnaheedu waxa weeye inuu dabaalanayo hadaba marka Allah subhanahu wa ta'ala ereygan u adeegsado qayb kamid ah samada macnaheedu maahan inay biibayso macnaheedu waa inay ku wareegaysanayso booskeeda hadaba quraanku wuxuu leeyahay cadceeda iyo dayaxa iyagoo booskooda ku wareegaysanaya makaankooda halkooda ay ku wareegaysanayaan balse iskuulka waxaan ku soo bartay qoraxdu inaysan wareegaynin maanta saynisku waa hormaray waxaana heli karnaa sawirka sadxiga qoraxda waxaana arki karnaa camad madow oo qoraxda ku dul yahay camad madow waxay qaadanayaan ku dhawaad 25 maalin si ay u dhameystiranto hal wareeg oo kaamil ah in cadceedu ay qaadanayso ku dhawaad 25 maalin si ay u dhameystiranto hal wareeg oo booskooda ku wareegto sida darteed saynisku wuxuu noo sheegayaa wixii aan ka baranay iskuulka 1982 inuu ahaa qalad quraankuna nooma sheegin arintaas kaliya 20 sano ka hor wuxuu noo sheegay 1400 waxaan iskuulka ka bartay waxay ahaayeen 20 sano ka hor quraanku wuxuu leeyahay waxaad barato waa qalad markii hore waan la yaabay balse dib ayaan ka ogaaday quraanku inuusan qaldaneen quraanku ma qaldana buugayga sayniska ayaa qaldana balse tasliima nasriin ma aqaan sida ayadu dhex gelisay ereyga dhul ma garanaayo ma carabiga taqaana ma ingiriiska akhri kartaa xitaa tarjumada ingiriiska sidaas ma oran waa waxay ka soo qaaday oo kaliya quraanku markuu leeyahay way wareegaysaa u jeedo waxay ku wareegaysaa gaartaas waa mala awaal oo kaliya mala awaalkeeduna waa qaldan yahay balse quraanka alxamdulillah ma qaldana waan ku waafaqsanahay sidoo kale in Allah subhanahu wa ta'ala maamulayo koonka waana arintaas sababta marka la waafajiyo Francis Bacon filosoofkii weynaa wuxuu yiri sayniska aadka u yar wuxuu ka yeelayaa diin laawe balse cilmiga iyo sayniska aadka u ballaaran ka yeelayaa mid rumaysan hal ilaahu kaliya waxaan rajaynaynaa su'aashaada ka jawaab haddaad wax su'aal qabto waan ku soo dhaweynaynaa walaal haddaad qabto wax su'aal oo naga soo horjeeda waan ku soo dhaweynaynaa waan ku jecelnahay mudane aniga ma hubo nambarka aayadda wax dhiba male aniga kaama soo horjeesan waan ku saxay oo kaliya haddaad bixisay nambar qalad oo sax ahayn waxa igu waajib inaan saxo aniga kuma dhihin waa waajib inaad dusha ka xifdido adiga computer ma tid anigana computer maahi balse waxaan u malaynaa in lagu sheegay suuradda 8aad in qoraxdu dhulka ku wareegayso arintaas quraanka laguma sheegin waxaad soo qaadatay waxa weeye suuratul anbiya suuradda 21 aayadda 33 waana arintay soo qaadatay tasliima nasrin iyo boqolaal kale oo islaamka ka soo horjeeda laguma sheegin suuradda anfaal waa suuradda 8aad xitaa quraanka laguma sheegin in cadceedu gaararka dhulka ku wareeganayso maxamada ugu dhow ee arintaas ka dhalan karto adiga ku haysato waxa weeye inaadan garanaynin luqadda carabiga ama aadan garanaynin tarjumada saxda suuratul anbiya suuradda 21 aayadda 33 soo qaadashadaadii hore aad ay u dhaweyd wuxuu ahaa 12 aayad kaliya suuradda waa sax 21 balse aayadu maaha 22 ee waa 33 waa saas quraanka maya waa suuradda 21 aayadda 22 Allah wuxuu maamulayaa koonka Allah koonka ayuu maamulayaa sayniskuna ma gaarin darajo uu wax kaaga sheego xaqiiqada ku saabsan Allah subhanahu wa ta'ala waxaan jeediyay muxaadaro quraanku ma hadalkii Allah oo si cilmiyeysan ku sugay jiritaanka Allah subhanahu wa ta'ala walaalaha mutadawwicinta waxaan ka dalbanayaa in hal canjal video oo muxaadaradaasi ah aysiiyaan walaal ashraf ayaan ka codsanayaa inuu canjalkaas walaalaha ka dalbo waxaan ku hadiyin doonaa canjal video ah quraanku ma hadalkii Allah halkaasna waxaan ku sheegay dhowr xaqiiqo cilmi ah si caqliyeysan oo cilmiyeysanna waxaan ku sugay jiritaanka Allah subhanahu wa ta'ala maanta saynisyahanada ugu waaweyn ma inkarayaan jiritaanka Allah subhanahu wa ta'ala balse waxay inkarayaan waxyaabaha ilaah loo ekaysiiyay la ilaaha ma inkarayaan ilaah balse waxay inkarayaan sanamyada la ilaaha illa Allah hadaba maanta saynisyahanada ugu badan waxay rumaysan yihiin jiritaanka Allah laga yaabay qaarkood inuu dhumay balse badankood waxay rumaysan yihiin jiritaanka khaaliq ama abuure midda ku saabsan abuuritaanka koonka maanta saynisku wuxuu noo sheegayaa qaabkii loo abuuray koonka sidee qaraxii weynaa sax hagaag qaraxii weynaa saynisyahanada maanta waxay noo sheegayaan in bilowgii hore koonku uu ahaa walax aad u weyn kadibna waxaa dhacay kala bixi qaraxii weynaa markaas ay sameysmeen galaksiyada xidigaha meerayaasha cadceeda dayaxa iyo dhulka aan ku dul noolnahay taasi waa aragtida qaraxii weynaa kormeed ogaata aragtida qaraxa weyn 20 sano tagtay 30 sano 40 sano sax alla wuxuu ku leeyahay quraanka suuratul anbiya suuradda 21 aayadda 30aad waa 1400 sano tagtay Allah wuxuu leeyahay miyayna arkeen kuwii gaaloobay in samooyinka iyo dhulku ahaayeen kuwa isku dhagan oo aan kala bixinay anna samaawaati wal arda in samooyinka iyo dhulku ahaayeen isku dhagan oo aan kala bixinay hadaba alla wuxuu leeyahay samooyinka iyo dhulku waxay ahaayeen kuwa midaysan oo isku dhagan kadibna waan kala bixinay qaraxa weyn ee saynisyahanadu maanta ka sheekeynayaan waxa lagu sheegay quraanka 1400 sano ka hor yaa awood inuu arintaas quraanka ku sheego xilligaasi uu saynisku hormarin
waa abuuraha. isla sidaasi muxaadaro kaamil ah ayaan arrintaasi ka sameeyey. waad u noqon kartaa qur-aanka iyo sayniska iyo qur-aanku ma hadalkii Allah. insha Allah haddaad ku daawato caqli furan waxaad ku qanci doontaa inuu jiro hal ilaah oo keliya oo ah kan abuuray koonka. mahadsanid.